السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب السود وهذا ما أنتم حندوني أنا إذن لو ذاقو أن واحد لو يقانو كرود يعني ASP.NET سيداد إن insert وسمين لهيد وحق وحرين لهيد أضو استعماليا ASP.NET و C# سيدو كلا أدن حقتها وابريد كرين لهيد وناليليدي لهيد أن marka ugu horeysa waxaad soo kicinaysaa Visual Studio gaaga kabacdi Visual Studio gaaga markaad soo kicisid waxaad saaraa new project anigu hore baan u samaystay project yar xaggan ugu furaa crude kana soo kicinaya new project baad sameynaysaa new project baad dhaxsaa marka new project tiraahid hadaasaa website project oo sii dhigi kartaa halkan website waad ka dooran kartaa kabacdi markuu solution explorer kuu soo kaco waxaad sameynaysaa design-kan yar baad sameysanaysaa saddex text box iyo ID name iyo telephone iyo saddex text box aad ka xareyn lahayd xagga waxaad soo dhiganaysaa saddex button-ka aad wax ka gelinaysay button-ka aad ka deleteysay kaad ka update garaysay inta kaliya xagga database-ka haddaynu eegno waa inuu kuu sameysan yahay table-ka aad xogta ka xareyn lahayd iyo database-kii uu ku dhex jiray intaas markay diyaar ku yihiin kabacdi coding waad bilaabi kartaa inaad isku xidhid database-ka iyo Visual Studio-ga then aad xogta xaysid aad update garaysid aadna delete marka haddaan idin tuso aniga table-kay samaysan database aan tago sample database-kan igu sii jira table-kaygu tables baan kasii tagay table test la dhaho ayaa ay samaysan anigu aan rabo inaan hadda practical ku sameeyo waa kan table test design-kiisa haddaan tagno so inta kale ma ku kooban yahay waa kan waa table-kaas saddexda column ka kooban ID data table-kiisa waa intii halkan not null wuu noqon karaa waa name waa varchar waa telephone isna waa intii intaas ayaad ka dhigaysaa database-ka intaa markaad ka dhigtid waxaad sameynaysaa waxa la yiraahdo waxaad ku noqonaysaa Visual Studio-gaaga kabacdi waxaad bilaabaysaa coding aad bilaabaysaa marka ugu horeysa v code aan dhaho v code marka ugu horeysa waxaa laga rabaa inaad soo import garaysid labada namespace system data iyo system data.sql client labada database marka soo import garaysid using badaas hadii inta sidaa ay u qoran yihiin badalka ugu qoraysaa halkan waxaad ku qoraysaa variable-ka waxaa soo dhex dhigaysaa path-ka ama connection-ka database-ka path-kan meeshaad ka soo qaadayso waxa weeye waa halkan weeye halkan ku qoraysaa server express marka path-ka waxaad ka soo qaadanaysaa halkaas ka soo qaadanaysaa markaad path-ka soo qaadato marka ka bacdi waxaad bilaabaysaa inaad implement-ka samaysid ama coding-ka inaad samaysid okay waxaad tagaysaa marka ugu horeysa insert-ga marka ugu horeysa sameynana button 1 way ku dhex sameynana hadaas SQL client SQL connection CNN equal new SQL client xagga marka waxaad gelinaysaa wuxuu qaataa hal parameter marka parameterkaas waxaad siinaysaa variable-kaas ayaad siinaysaa cn kaasi connection-ka xaggan u keeno interde marka waxaad tiraahdaa SQL command wixii fulin lahaa execution-ka aad sameynaysaa cmd equal new SQL command bracket for laba parameter ayaad siinaysaa kana parameter koobaad waa query-gii waa insert into test values bracket fursa marka waxaad gelinaysaa text box-adii aad wax ka soo xareyn lahayd text box koobaad ee aan ID ka soo xareynayo ayaan qorayaa halka ku ridaya hadaya single quotation furan haddana waan xidhayaa haddana double quotation furan waan xidhayaa then hadaya plus dhexdeedan tagayaa space baan dhahayaa markaan t-da qoro waa in text box-tadii soo baxaan text box
waa kuwa text box ida kaas soo baxay text box 1 baan dooranayaa ilaa text box 1 baan id ka xareynayaa waa column ugu horeeyay text box 1.text space de halka ugu dambaysa tag comma de inta in la qor single double quote plus dhexda tag text box 2 dooro .text haddana waxaad tagtaa meesha ugu dambaysa comma de laba single quotation laba double quotation laba plus space text box 3.text then halka ugu dambaysa tag xagan space d again ka diido marka qaar bracket ka soo xiraysa bracket ka soke insert hal text box ka bilaabmo wad xiraysaa then waxaad xiraysaa quotation ka xiraysaa quotation ka yare insert ka horeeya ayaad xiraysaa si uu kala horeeyo ayaad u kala xiraysaa haddana waxaad xiraysaa bracket ka quotation ka horeeya then waxaad daasaa semicolon halkan waxaa ka dhiman parameterkii labaad halkaas waxaad daasaa comma connection ka markaa la gelinaysa macnaha query-gi markaad qortid query-gi la execute gareeyo wuxuu u baahan yahay in connection-kii la furo si database-ka u galo marka connection-kii halka ku qoraysaa cnn baad daasaa then cnn markaad tiraahdo enter de marka haddaba waxaad furtaa connection-kii fur waxaad tiraahdaa marka waxaad tiraahdaa cnn.open okay marka haddaba cmd-ga query-ga wada execute garee hadda saa cmd.execute non query then hadda waxaad xidhaa connection kii cnn.close that's all kadib waxaad ku darasaa in yaro conditional oo ku sheegaya xogta markaad xareysay inaad xareysay xogtii markaadan xareyna in khalad jiro aadan xareyn marka haddaasaa warsa xagan cmd hortiisa variable ku darso intii row wuxuu yahay cmd.execute and query haddaasaa if row balance soka ku soo qeexday uu ka weyn yahay 0 hadii 0 ka weynaado label 1 waxaad siisaa label 1.text alla mid noqo you inserted data else waxaad tiraahdaa haddii uusan la mid nahayna label 1 haddii uusan 0 ka weynaan halay row waajusan 0 ka weynaan oo macnaha waxba la xareyna waxaad tiraahdaa label 1.text la mid noqdo there is error so try again intaa markaad samaysid intaas waxaweye intaas waa insertkii anu sameyno deletekii buttonka delete kligeli dhacdaa markaa si aan waqtiga u save garaysano intan sare unbaad soo kordhiyeysanaysaa ilaa single connectionka ilaa intaa
CNN close ka inta kaliya soo koobiyensa intan hoosana waad raacin kartaa if else taas waad raacin kartaa laakiin if else dadka xitaa macna ma lagu ku shaqeynaya if else waxay ku sheegaysaa inaad xogta xaraysiin in kale ay ku soo bandhigto waa inta query-ga intaas ka delete then waxaad tiraahdaa query-ga uma beddeleysaa delete test delete from test where id will limit yahay waxa la soo geliyo text plus 1 laba semicolon laba double colon laba quotation baa leeyahay laba plus text plus 1 dot text inta markaad samaysid waxaad sameynaysaa oo kale conditionka waxaa leeyahay quotationka ku xiran yahay sax presentan baad kana sameynaysaa text box 1ka marka la soo geliyo id-ga waxaa la rogaas oo dhan delete badaasa parameterka labaadna waa kan waa connectionka update-ka uu kaalay intii hore aad soo koobistay uu ku paste intan inoo soo koobiyey tag paste ku dhig kaas ku dhig kana inta uu beddeleysaa query-ga uu beddeleysaa taalada bracket u dhigaysa button-kani waa update-kiisa haddaasa update-kan marka hore buu furaa xaggan ku soo kicinaysaa halkan speed click dhacsaa waa kan that's update test set marka name-kaad ka bilaabaysaa waad ugu dambaysiinaysaa id-ga maadaama uu yahay wax lagu update garanayo mas'uulka roog oo dhan name-ka marka la soo geliyo text box 1 waxa la soo geliyo name kala noqdo wixii hore taabtir waxa hadda la soo geliyo text box 1ka ka dhig saas weeyaan laakiin name-ka halka ku qoran iyo name-ka database ku qoran waa inay soo qornaa hadda kolomyada aan halkan ku qoran waa inay si database-ka ku qoran halkan ugu qoran id-gani si database ku qoran waa halkan ugu qortaa halkan hadda capital ka dhigirtid id sama dhaqo waayo database-kayga saas ayuu ana table-kayga saas ayuu okay marka name-ka la mid noqdo text box 2 text box 2 ka xariirinay text alka single quote tag command waxaad tiraahdaa marka telephone-kuna hala noqdo hala mid noqdo telephone-kuna text box 3 text okay that's on result inta kaliya weeye aan tijaabino sidoo kale aan soo kixino SQL Server-keena si aynu u ogaano xogta ku jirta okay nabad soo kacay labaduba connected new query marka hore waxaan eegaynaa table-ka bal waxa ku jira taynu ogaano xogteedii inay xareynay inay deletenay inay okay wuxuu ahaa select
all from test. Okay, halkaa qof baa ku jira ID-giisu wan yahay, magaciisuna cabdi yahay, lambarkiisuna uu yahay 483438. marka aynu qof cusub xareyno ID-giisa aan ka dhiganaa 3 waa ka dhigda, magaciisa aan ka dhiganaa jaamac, telefonkiisa aan ka dhiganaa 22334455. aynu insert odhano. okay, labelka waxaan kusoo qoray insert data sax. maxaan ka eegno balin xareynay in exclude dhahno waxaa soo qoray jaamac oo lambarkiisu intaa yahay, ID-giisuna uu yahay 3. okay, jaamac laftirkiisa ayaynu update gareynaynaa, ID-giisu 3, magaca ka bedelan waxaa ku dhigtaa hurre ka dhigan hurre. lambarkiisa sidiisa ha ahaado, waxna waad ka bedeli kartaa lambarkiisa. lambarka bedeli mayno, magacan bay ka bedelanaa, ID-gii lambarka kuwii hore ahayna noqdaan updated. there's error, bracketkaas ayuu haystaa. okay, bracketku halkan ayaa waxaa ka dhiman quotation baa ka dhiman. quotation waxaa ka jiraysaa no quotation maxaa la bracketkan adhiga ku ah kaas adhiga ku ah. okay, ID-giisu wuxuu ahaa 3 buu ahaa, magaciisa wuxuu ahaa jaamac buu ahaa. hadda waxaan ka dhiganaa hurrin ka dhiganaa hurri noolay marka ka dhiganaa hurri sax. lambarkiisa waxaa ka dhig lambarkiisana waxaan ka dhiganaa 44334433. update bayn dhahnay. telephone, what's wrong telephone waa la mid noqda inta telephone ldria ku jirta waynu si aynu u qoro. okay, 3 hurre lambarkana 54 update hadda ayuu qaatay inkastoo okay, magacii wuxuu ahaa hurri, waxaan leeyahay wuxuu ahaa jaamac hurra laga dhigay, lambarkiina waa la bedelay laakiin ID-ga tigiisii weeye. haddaba bal aan dhilidno hurre aan dhilidno. hurre oo 3 ah delete bracketka kan ayaa dheeri ku ah. okay, and delete 3. okay, aan eegno waa delete lambar 1 kana aan delete kaasina waa delete may aan eegno isna waa delete. hadeer wuu maran yahay table-keenu, waxa waynu delete waxna waynu update gareynay, waxna waynu xareynay. intaas ayuu ku egyahay.